ninkan maalqabeenka ah waxa uu leeyahay hanti balaayiin ah balse weligiis lacagtiisa bangi ma dhigo. Halkii wuxuu ku qariyaa meel kasta oo gurigiisa ka mid ah. Haddii arrintan la ogaado wuxuu halis ugu jiraa inuu xabsi dheer galo sababtoo ah wuxuu haystaa lacag aad u badan oo aan sharci ahayn. Hitaa haddii dad badan isku dayaan inay tirinayaan ma awoodaan inay kala saaraan inta ay leeg tahay. Dahab, qalin iyo dheeman aad u badan ayaa yaalla waxaana qaadistooda u baahan lahayd boqolaal dambiilood. Hitaa saqafka kama uusan tegin hal xabad haddii la rido dahab ayaa roob ahaan uga daaya. Intaas kuma eka wuxuu leeyahay qol hoose oo sir ah. Qolkaas waxaa ka buuxa weelal iyo digsiyo dhammaantood ka samaysan dahab saafi ah. Inkastoo uu aad u taajir yahay haddana dahabka kama daalo. Dhammaan waxaasi waa hanti uu si sharci darro ah ku helay. Inkastoo uu nolol degan ku noolaa haddana sirtiisu si degdeg ah ayay u faaftay. Maalin maalmaha ka mid ah aniga oo ah sarkaal canshuureed ayaa la ii soo gudbiyey war qarsoodi ah. Waxaa la ii sheegay in nin maalqabeen ah uusan weligiis canshuur bixin islamarkaana uu gurigiisa ku qariyey hanti aad u badan. Isla markiiba waan bilaabay baaritaan. Waxay ii caddaatay inuu leeyahay ganacsiyo badan balse uusan si sax ah canshuur u bixin. Si aan u ogaado waxa uu qariyey waxaan helay ogolaansho sharci ah waxaana aaday gurigiisa weyn. Isagu wax cabsi ah muu muujin. Wuxuu saaxiib leeyahay ra'iisul wasaaraha. Haddii aan waxba heli waayo shaqadaydu halis bay geli lahayd. Laakiin ma aanan baqin. Waxaan amar ku siiyey kooxdayda inay guriga baaraan. Si la yaab leh wax lacag ah ma aanan helin markii aan niyad jab ku dhawaa inaan baxo ayaan jeebkayga ka helay warqad muujinaysa halka uu hantida ku qariyey. Waxaan biyo ku shubay derbiga rinjigii ayaa bilaabay inuu dilaaco taas oo iga dhigtay inaan ka shakiyo. Waxaan qaatay dube waxaanan jebiyey derbiga waxaana ka dhex helay lacag badan oo la qariyey. Ninkii maalqabeenka ahaa wuu garwaaqsaday inuu dhibaato ku jiro. Wuxuu isku dayay inuu isiiyo lacag dhan $5,000 si aan u joojiyo. Laakiin waan diiday inaan qaato lacagtiisa sharci darrada ah. Kadib waxaan aaday qolka hoose halkaas oo aan ka helay dahab fara badan. Hitaa weelashii iyo digsiyadii waxay ahaayeen dahab saafi ah. Kadib waxaan qoday barxadda guriga waxaana ka helay sanduuqyo dahab ka buuxo. Markuu arkay inaanan joojinayn wuxuu qaatay qori si uu ii dilo. Xaaskiisa ayaa isku dayday inay ka celiso balse qorigu si lama filaan ah ayuu u qarxay wuxuuna ku dhacay saqafka. Isla markiiba dahab ayaa roob ahaan u soo daay. Markaan arkay taas aniguna waxaan ku riday xabado kale saqafka. Waxaa caddaatay inuu hanti badan ku qariyey saqafka. Markuu ogaaday in sirtiisu soo bixi doonto wuxuu sheegay inuu bannaanka u baxayo. Inkastoo aan ka shakiyey inuu gargaar raadin doono haddana waan u ogolaaday inuu baxo xitaa gaari ayaan u wacay si aan si degan u sii wato baaritaanka. Markii dambe wuxuu isku dayay inuu duqa magaalada caawimaad weydiisto balse wuu diiday. Kadib wuxuu aaday ra'iisul wasaaraha balse isna waxba ma qaban karin. Isagoo caraysan ayuu isku dayay inuu isticmaalo dhammaan awooddiisa si uu u joojiyo dhibaatada. Laakiin intuu maqnaa anigu hore ayaan u helay dhammaan dahabkii iyo dheemantii uu guriga ku qariyey.